gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Jayte Cismaan ayaa bulshada gobolka Hiiraan uga digay qataro fatahaado iyo daadad la filay karo in saacadaha soo aadan ay ku dhuftaan magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka. Gudoomiyaha gobolka ayaa warkan sheegay kadib kormeer maanta uu ku tagay goobaha biyaha webiga uu ku soo bixiyo ee Beledweyne ku yaala, gaar ahaan kiliyada Waraabole, Dhagax Jibis iyo Buundalabaad. Masar Jayte kormeerkiisa waxaa ku weheliyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Mudane Cumar Aadan Deeqow Baadiyo, gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas iyo xubno ka mid ah maamulka degmada Beledweyne. Cumar Aadan Deeqow Baadiyo oo ka mid ah guddi u istaagay wax ka qabashada fatahaadda webiga Shabeelle ee soo noqnoqota ayaa sheegay in loo baahan yahay in bulshada gobolka ay isku tashtaan. waxaa maanta sharaf weyn inoo ah in aan soo kormeernay 3 tiim injineer ah, tiim guddiga ganacsiga ee gobolka Hiiraan iyo tiim mataqaanaa maamulka gobolka Hiiraan oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka iyo tiim oo ayagana arrimaha bulshada iyo u weeyahay uwaaska inaan mataqaanaa kormeer ku soo sameynay qaybo badan oo mataqaanaa biyaha ay ka bixi jireen. Cali Jayte Cismaan gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in ila xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen in qataro badan oo fatahaado ah ay gobolka Hiiraan ay ku soo wajahan yihiin kadib xiriir uu la sameeyay dad ku sugan gudaha Itoobiya. Waxa uu dhanka kale uu xusay in muhiim ay tahay in loo istaago sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha soo noqnoqda. Gudoomiyaha ayaana shaaciyay in kiliyada Waraabole, Dhagax Jibis iyo Buundalabaad ay ku sameyn doonaan carro buuxin iyo sidoo kale in loo baneeyo meelo webiga biyihiisa ay ku baxaan. waxaan rabaa dhowr arrimood inaan maanta carabka ku dhifto. waxaa la sheegayaa oo na soo gaaraya xogo ila lagu kalsoon yahay aan ka helnay in fatahaad tii sanadkii dhowaa ama la eg ama ka sii fog ay nagu soo socoto. waxay soo maraysaa hadda sida naloo sheegay oo ila xodogaali noo xaqiijiyeen ama qalabkan warisgaarsiinta ay noogu xaqiijiyeen meesha la yidhaahdo Qallaafe, ayaga oo biyaha la leeyahay waxay soo gaarayaan lalmis meesha la yidhaahdo oo buuraha salkooda oo ilaa waad garanaysaan webiga oo magaalada ku taallo iyo buuruhu baaxadda intay isu jiraan waad garan karaysaan. weligiis meelaysan gaarin bay gaadhaa la leeyahay biyobaxdaasi. waxaan leenahay waxaa dhici karta in khasaaro ba'an oo naf iyo maallaba ay keento arrintaasi, iyadoo dadku ay ku jiraan biyobaxdaasi hadday qabato oo ay jirto Beledweynena aan qiyaasayna iyo eeryadiisa laga yaabo in roobab xoog la ka bilowdaan. dadka awal oo la daala dhacayay xanuunkan fayraska la leeyahay corona fatahaadana ku yimaadaan meeshaas waxaa ka soo baxaya xaalad bini'aadanimo. xaalad adag baa halkaa ka muuqanaysa. waxaan leenahay oo aan codsanaynaa sida baaqayna horeba ku jirtay dowladda Soomaaliya dadkan inay xal u hesho ay u soo gurmato. meeshaa waxaa ka iman karaya xaalad aad u khatara ayaa ka soo bixi karaysa. sababtu tahay ayadoo awal adeegii bulshada iyo gaadiidkii iyo isu socodkii iyo ganacsigiiba aad mooddo inay aad u liiteen xanuunka adduunka ku baahay awgiis, haddii haddana fatahaadi timaado oo ay dhacdo in la barakaco. sanadkii dhawaa waxaa ku dhintay dhowr iyo 10 qof ayaa ku dhimatay webigan fatahaadda inta la og yahay, oo qaarna meydkoodii la helay qaarna lagu leeyahay meydkoodii ilaa haddana waxaa la sheegayaa khatartu intaynay ka sii badan tahay. annagu ka gobol ahaan annagoo kaashanayna allah subxaanahu wa tacaala allahna waafajiye ganacsatada iyo odayaasha iyo waxgaradka kaashanayna jeebabkooda waxa ku jira iyo waxaan aanala heli karno intaba kaashanayna. xoogaa lacag ayaa noo taalo ganacsatada iyo ay ururiyeen ayaannu haysannaa, annana waxbaannu kaalmay ku dari doonnaa. waxaan rabnaa maalmaha fooda nagu soo haya inaan qabanno shaqada. haddii fatahaadii sanadkii dhaweed dhacdoo kale ay dhacdo xaalad bini'aadanimo ayaa meeshaa ka soo baxaysa. waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanaynaa iyo isteedkaba
dadkan in gurmad iyo loo soo fidiyo marxaladda uu ku sugan yahay laga kaalmeeyo marxaladda uu ku sugan yahay. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.